ciidamo sheegtay inay ka tirsan yihiin laanta ilaalada canshuuraha ee ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saakay abaara 9:40 waxay soo weerareen xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho. ciidamadan oo tiradoodu gaaraysay 10 askari ayaa watay gaari ay ku buufsaneed astaanta ciidanka booliiska Soomaaliya waxaana ay xoog ku soo galeen xarunta TV-ga iyagoo qoryahooda ay wateen uuna ammaankooda furnaa. maamulaha TV-ga ayaa u soo baxay ciidankan xarunta soo galay waxaana uu ka codsaday in hubka bannaanka ay ula baxaan si nabad ahna ay u wada hadlaan maadaama xilligaasi TV-ga uu si toos ah hawada ugu jiray. sargaalkii hogaaminayay ciidamada ayaa diiday codsiga agaasimaha waxaana uu ku amray ciidamada uu watay in xarunta ay soo wada galaan waxaana taasi ay sababtay in ugu dambeyn rasaas ay bilaabaan ciidanka booliiska. rasaastan oo socotay qiyaastii 10 daqiiqo oo u dhaxaysay ciidamada booliiska ee xarunta soo weeraray iyo ilaalada xarunta ayaa ugu dambeyn istaagtay iyadoo la qabtay inta badan ciidamadii weerarka soo qaaday waxaana xarunta Universal TV u soo gurmaday ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. Cabdullaahi Xirsi Kulmiye agaasimaha TV-ga Universal ee Bariga Afrika ayaa warbaahinta u sheegay in falkan uu ahaa mid arxan darro ah loona baahan yahay in dowladdu ay jawaab ka bixiso. alxamdulilah waxaa mahadle ilaahay naga badbaadiyey saakay dhacdadii ka dhacday xarunta Universal. dhacdada waxay ahayd saaka markay ahayd 9:40 ayaa xarunta waxaa gudaha u soo galay nin sheeganaya inuu yahay qaybta booliiska oo ciidamo wata asagoo wata 10 askari. anaa u soo baxay markaan u soo baxayna waxaan ku iri xagee ka socotaa? booliiskan ka socdaa. waxaan ku iri aan xafiiska fadhiisano. adiga miyaa agaasimihii yiri haahan ku iri agaasimihii aniga waaye. ciidankaana xarunta iga saar ammaankana ha xiraan. intaas markaan ku iri wuxuu yiri waxay xirayaan ma laha meeshana waa la xiraa. markaa afkiisa ka baxda waxaan wacay ninka la yiraahdo Bariise oo aan ku ogaa saraakiisha sarsare ee booliiska. ku iri nin sheeganaya inuu booliiskiina ka tirsan ciidan wata xaruntayda ku jira. waxaan rabaa inaad la hadashid waxa uu rabana aad weydiisid. TV-ga live waaye xarunta inuu ka baxo ciidan ka bixiyo asagana xafiiskan wada tago. intaa markaan iri lama hadlayo yiri ciidankiisu amray inay xabado furaan difaaca xaruntana qabtaan. xabadihii bilaabeen saasaa xabaddu ku bilaabatay. waxaa noo soo gurmaday ciidanka madaxtooyada oo ayagiina qabtay. ilaahayna waa naga badbaadiyey. intaas ayaa nagu dhacday saakay toole. waxaa cajiib ah oo aad aan ula yaabnay nimanku waxay sheeganayeen inay ka socdaan qaybta canshuuraha. taliyaha qaybta canshuuraha waa la hadalnaa ma oga. wasaaradda maaliyadda waa la hadalnay ma oga. waxaa kaloo aada u naxdin badan nin korneyl ah oo yiri anaa soo diray oo noo yimid. dowladdii mas-uuliyiinteedu waaweyned waxay leeyihin ma ogi. inay ka xun yihiinna way noo sheegeen laakiin nama daaweynayso. ma ogi iyo waa ka xuma. ma ogi iyo waa ka xumahay. dalkan meesha ay gaarsiisa waa ogna. waxaan ka codsanaynaa dowladda mas-uuliyiinta ugu sarreysa sharciga in la horkeeno. annaga haddii wax nala ku yeesho nala ku leeyahay annagaaba diyaar ah oo dalkan u shaqaynayna. laakiin waxaan aaminsannahay arrintaanu inayna canshuur ahayn ee wax kala huwanayd. waxaan rabnaa sharcigu inuu shaqeeyo kala saraynta sharciga inuu shaqeeyo ayadaana daaweysa ayadaana daawo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maxamed ibraahim macalimow oo ah xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa isna ka hadlay dhacdadan. runtii saaka waxaan aada uga xunnahay in telefishinka Universal xaruntiisii magaalada Muqdisho ay soo galaan ciidan hubeysan. ma jirto sabab keeni karta idaacad live ku jirta oo shaqaynaysa in qori lala soo galo oo intaasoo wariyaala ay subax walba usoo shaqo tagaan.
haddii ay jirto cid rabta inay timaado ama la soo xiriirto idaacadda waxaa jira hab lagula soo xiriiro marka in dad qoryo wata ay idaacad live u socotaa soo galaan runtii waxaan u aragnaa waxaashnimo oo la doonayay in dan gaara laga lahaa runtii waa cambaaraynaynaa waxaanan ka codsanaynaa cid walbo ay qusayso in arrintan wax laga qabto waxaan la xiriirnay xafiisyada dowladda ee ku shaqada leh waxay noo sheegeen inaanu jirin haba yaraatee fal ulakaca oo universal ka dhana oo ay ka warqabaan ama ay amreen haddii sidaas xaalku uu yahay waa ka qaadanaynaa laakiin waxaan taa rabnaa in la xaqiijiyo in kuwii dembiga geystay ciidankii maaragtay meeshaan tirada lahaa ee qoryaha la soo galay in tallaab laga qaado oo sharciga meel aan ahayn lagu kala bixin sharcigaana deeqa haddii ay qaldanaayeen waa in qaladkooda iyo sharciga horteeda lagu kala baxaa sababtoo ah idaacad socota oo life u socota in qori lala soo galo oo dadkii la cabsigeliyo aad ogtihiin waddankan magaalada aan ku noolnahay dadka ilaalada ee meesha jooga ee xarunta jooga ilaahay ka sokow waa labada qof ama dadka ilaalinaya ciidanka haddii dad ciidan wata iska soo galaan ma u ogolaan karaan waa in ay jirtaa hab dadka in la ogaado cidda imanaysa marka in taliye uu yidhaahdo anaa soo diray sababta usoo dirayna aanu sheegin waxay la mid tahay fal weerara oo lagu soo qaaday xarunta Zakariya Maxamuud Timcade Universal TV